bal idinku amuurtan eega aabadalkaasi Ciraaq u dhashay baa gabadh yar u dhalay oo 7 sano jirta waxay isku soo xidhay qol gabadhii yarta albaabkii waa lagu garaacay si walba hadii loo garaacay way furi weyday aabihii wuu cabsaday qolyahan debdemiska dadka gargaarka degdega u fidiyay difaaca madaniga la yiraahdo buu wacay wuxuu yiri soo gaara gabadh yar oo dhalay oo aad u yar oo 7 jir ah waxay ku xidhan tahay qol albaabkana ma furayso waxba ku dhacay baan u malaynayaa hal ii soo gurmado qolyihii way yimaadeen albaabkii bay garaaceen ma furayaan albaabkii waa la jabiyay albaabkii markii la jabiyay ee gudaha loo galay aabihii iyo qof kaamirada duubaya iyo macal qolyihii gargaarka fidinay markay guriga gudaha u galeen waxba qofba guriga kuma jiro qolka waxa taala sariirtana bustaa kor saaran bustaa hoostiisa laga fiiriyo cunugtii yareed saanti bustihii loo soo qaaday gabadhii yareed ayar bayba iskaga jiiftaa sariirta telefoon bay daawanaysaa ma hurudo way soo jeedaa bustii huwantahay sariirtay ku jiiftaa telefoon bay iska daawanaysaaba waa kaana shay-an lam yakun albaabkan la garaacayo iyo qayladan iyo albaabkan la jabinayo iyo ambalaasyadan la wacday waxaas warya wacalba uma haysaba cunugta yare telefoon bay iska daawanaysaa cunugta yacni waalidkeed way walwaleen oo way cabsadeen oo waxay u maleynayeen inuu wax ku dhacay wax ka qaldan yahay saas darteed bay u wacdeen difaaca madaniga gabadhan yar laa qaylada hooyadeedii aabaheed walaa albaabka la garaacayo walaa kan la jibinayo war ma haysa telefoon bay iskaga mahaysatay ku maqan tahay iyadoo ayar telefoon iska daawanayso busto uun baaba loo tagay cunugtii inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun cunugtaas hadda adigu dhashay maxaad ku samayn lahayd